shirkan looga hadlayay arrimaha qaxootiga dalka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa maanta waxa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho waxaana shirkan soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir waxa ka soo qayb galay hay'ado caalami ah oo rab bulshada rayidka xubno ka socday xiriyaha barakacayaasha Muqdisho iyo sidoo kale madax ka socotay dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Abdurrahman Umar Ismaan Engineer Riiso wasiirka qorsheynta qaranka Jamal Xasan wasiirka dowladda xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Abdullahi Xamed Ahmed madaxa guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Mudane Ahmed Daahir iyo sidoo kale madaxa UNDP Soomaaliya George Colonway waxa muhiimadda kulanka uu ahaa oo diiradda lagu saaray sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka waxaana goobta ka hadlay xubno kala duwan ee kulanka ka soo qayb galay iyadoo la soo bandhigay tacadiyo dhacay sanadii hore inuu soo dhaafnay dhamaadkeedii oo ka dhacay degmada Kaxda 29 ilaa 30 December halkaas oo lagu xarun dad barakacayaal ahi ay ku noolaayeen oo gaaraya 4222 qoys waxaana si isku mid ah ay u sheegeen dhammaan madaxdii kulanka ka soo qayb gashay inay aad uga xun yihiin sidii xal waara loogu heli lahaa ayna ka shaqeyn doonaan imika wixii ka dambeeya waxa ugu horreyn goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho Engineer Abdurrahman Umar Ismaan Riiso oo sheegay ujeedka shirkan iyo kaalintooda ku aadan gobol ahaan runtii ujeedada kulanka maanta waxay ahayd sida ujeedaan hanala joogo dadka yimid xiriyaha barakacayaasha Kaxda iyo Garasbaale ujeedadana waxay tahay maamulka gobolka Banaadir oo runtii aad uga damqanaya dadka nugul ee Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool sidii xal waara loogu heli lahaa waxaa jirtay dhacdo foolxun sida loo sheegay 29 December 2017 oo 4220 qoys si aan maaragtay oo binaadamnimada ku jirin looga saaray goobtii ay deganaayeen oo xooga taasoo kaliftay in dadkaas iyaga ah ay lagu xadgudbay xuquuqdooda asaasiga ah sidoo kale iyana goobta ka hadlay madaxa guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Ahmed Daahir oo sheegay in tiro gaaraysa 2 milyan oo qof dalka gudihiisa qaxooti ku yihiin halka qaar kalena ay ku nool yihiin dalka dibadiisa ama cunto xumo iyo jirro iyo dil iyo dhibaato iyo dhimasho ku timaado inay ogaadaan dibka hadda haysta dayac ka yimid dadkooda maaha waa sabab alla xaqiis iyo colaadan iyo dhibaatadan soo socotay laakiin waa laga gudbi doonaa dadka Soomaaliyeed ma mudna ayagoo resource-kaas iyo aqoontaas iyo waxbarashadaas iyo maaragtay dadnimadaas iyo dhulkaas leh in dadkooda ay u dhintaan gaajo Cabdi Fataax Maxamuud Dariye Sharkey KGS TV Muqdisho